shalay ayay ahayd markii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hortagay iyadoo la adeegsanayo shaarka dowladda federaalk ee Soomaaliya in lagu boobo dhulalka danta guud. balse maanta ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu ka shaqeynayay ay ahayd in iyadoo shaarka dowladda la adeegsanayo waliba la sharciyeeyo maantana ay soo boobaan dhulalka danta guud, taasi oo kamid ah in dowladnimadeena sharafteeda lagu ciyaaro waliba iyadoo la adeegsanayo shaarka dowladda sharciyeysanna lagu boobo dhulalka danta guud. shalay wuxuu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ka hortagay rag oo kamid yahay gudoomiyaha gobolka banaadir isagoo adeegsanayo shaarka dowladda in lagu boobo dhulalka danta guud. maantay ama waqtigan aan idin soo gudbina ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu bagiisa xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ka saaray raggii oo usoo magacaabay wasiirada ahay in arintani fulin ay ka suubiyaan waliba ay ka hortagaan dhulalka boobka lagu hayo. waa raggii shalay dowladdeena ay shaarkeeda adeegsanayay waliba ku boobayay dowladnimadeena dhulalka danta guud. waxaa kamid ah ortro wuxuu soo magacaabay ra-iisul maxamed xuseen roble 4 wasiir ayuu soo magacaabay. 4tani wasiir oo soo magacaabay 3 kamid ah waxay kamid ahaayeen raggii boqolaalka dhul ee maantay dooda badan dhalisay la boobayay waliba lagu adeegsanayay shaarka dowladda ayay kamid ahaayeen. maantana iyagii ayaa maanta loo sharciyeeyay in ay ka hortagaan. taasi waxay muujinaysaa sharaf dhaca dowladnimadeena in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo ku hayo dhaawac weyn ay adag tahay in laga soo kabsado. waliba waxaa sii adkaa doonto in la aamino dowladnimadeena Soomaaliya. ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu soo magacaabay 4 kamid ah wasiirada. 3 kamid ah ayaan ku faahfaahin doonaa waxa ay kala yihiin. horta waxaa gudoomiye looga dhigay wasiirka arrimaha gudaha Mukhtaar Xuseen Afrax. Mukhtaar Xuseen Afrax wuxuu hore u ahay generaal, wuxuu hore uga soo shaqeeyay ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya. haatan aan kula hadlayna waa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. wuxuu qayb weyn ka yahay ragga dhulalka ku adeegsanaya shaarka dowladda in ay soo boobaan. sidoo kaleeto waxaana inaan ku faahfaahiyo wasiirka amniga wuxuu qayb weyn ka yahay oo qayb weyn ka geysanayaa boobka dhulalka danta guud. wuxuu garab weyn ku siinayaa gudoomiyaha gobolka banaadir oo haatan muran weyn ka taagan yahay xilka uu ka hayo gobolka. waliba wuxuu si cad uga soo horjeestay warqadii oo soo saaray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku hakinayay dhulalka boobka lagu hayay danta guud. sidoo kaleeto waxaa la yaab leh wasiirka waxbarashada ayaa halkani ka muuqda. cabdulaahi abikar wuxuu kamid ahay shalay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble raggii ku karabsiinayay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dagaal toos ah lagu qaado. wuxuuna qayb ka ahay gorgortana kula jiray asaga iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala in qayb kamid ah dhulalka aaga ku yaalo airportka in loo saxiixo la siiyo waliba qodobadii uu adeegsanayay ayay kamid ahayd. maantana waxay kamid yihiin dowladda sharciyeysan boobayso dhulalka danta guud. taasi oo ka dhigan sharaf dhac dowladeena waliba ku noqon doonto nabar aad u weyn in laga soo kabsado. balse madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo arinkani ma ahan mid oo ku qanacsan yahay, waa arin oo si toos uga soo horjeedo. waxaan rabaa inuu ka soo saaro oo aan jeclaan lahayn warqad kaleeto oo ku aadan isaga laftarkiisa rag oo asaga magacaabay uu ku kalsoon yahay in uu u diro kana hortagaan boobka lagu hayo danta guud. waxaan rabaa fariin gaara inaan u diro ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble. ra-iisul wasaare xilligani waxaa lagu jiraa xilli doorasho. dowladeena waxay ku jirtaa xilli ay ka gudbayso xaalad ay adag tahay in dowlad walba ay kasoo gudubto. waxaan jeclaan lahayn inaad ku ekaato howshaadii doorashada iyo amniga doorashada. halkaasi fariintaasi aan ugu soo koobay ra-iisul maxamed xuseen roble. tan xigta waxay tahay shacabkeena waxaan idinka codsanayna waxay tahay inaad muujisaan
in aan kasoo horjeedno in la boobo dhulalka danta guud, weliba aan ku garabsiino madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sida weyn ama sida adag oo uga soo horjeedo in la boobo dhulalkeena. taasi ayaa ah dowladnimo. ma ahan dowladnimada in shaarka dowladda iyada loo adeegsanayo in lagu boobo dhulalka danta guud. fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad sii shaargarayso barnaamijkani, weliba aada laagarayso si uu u gaaro dad adiga kula mid ah, si uu ogaadaan xaqiiqada saxda ee taagan markaasi. waad ku mahadsantahay daawashadaada. fadlan